بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن صاحب يا الميل والبود جوجتان والسلامتين waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan xilli walba in tahay wanaagsan kay habeen u tahayna habeen wanaagsan kay maalin u tahayna maalin wanaagsan intaa kadib waxaan ka hadlayaa maanta xalqadeenan aan kusoo bandhigi doono hadduu ilaahay noo ogolaado mawduuc xaqiiqatan aan isleeyahay qofkii raba noloshiisa inuu wax ka bedelo aad iyo aad buu ugu baahan yahay kana mid ah waxyaabaha aad iyo aad qof kasta oo dhalinyaro ah siiba dhalinyarada khatar maanta ugu haya oo ka hortaagan inuu waxa hamigiisa ku jiro run iyo u bedelo ficil amba riyada ku riyoonayo inuu rumeeyo doonaya ka hortaagan waa maxay shaygaasi waa shay maanta dadku hadday garan lahaayeen oo hadday ka hortagi lahaayeen xaqiiqatan in fara badan ay riyooyinkooda u rumaysmi lahaayeen ilaahay dhammaanteen riyadiina noo rumeeyey waa maxay mushkiladaas amba caadadaas waa maxay waa caadada la dhahdo dib u dhigashada ama taswiif luqadda carabiga lagu dhahdo procrastination baa la dhahdaa ingiriis lagu dhahdaa waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso maxay u xun tahay dib u dhigashadu dhibaatada weyn ku jirta maxay tahay ka waran haddii aan maanta facebooka galo oon eegas idhaahdo dhowr daqiiqo kadibna daqiiqadahaasi saacad isku bedelayaan halkii aan wax ka baran lahaa amba aan diyaarsan lahaa imtixaanadayda amba casharadayda amba howlaha ii yaala haddaba maxaynu habeenkii oo dhan bal su-aal isweydii maxaan caawo oo dhan inagoo aan isdareemin oo aan caajis in yar dareemaynin aan tv-ga amba telefoonka u hor fadhinaa inagoo daawanayna ku raaxaysanayna oo aan dareemin in yaroo caajis halkii aan ka qabsan lahayn howle inoo muhiima adduun iyo aakhiraba su-aalaha jawaabahaas waxaa laga yaabaa inaad fahantid waa cawaaqib xumada ka dhalata dib u dhigashada waana mid ay lama huraan tahay inaad dareento hadda ama hadhow waxaana kuu fiican inaad imika dareento waa dhibaatada ay leedahay culayska kusoo wajahaya daqiiqadaha ugu dambeeya marka hawshii lagaa rabay intuu dib aad u dhigto waxaa yara malayacnigaad ku mashquusho daqiiqadaha u dambeeya culays weyn baa kusoo wajihi doona welwel imtixaankii biraha la galayaa shaqadii waa laga rabaa oo intood wixii oo dhan dib u dhigtay waxaa laga yaabaa in muraajaco lagaa rabay oo imtixaan ku sugayay waxaa laga yaabaa in shaqo ama project lagu dhiibay oo soo dhamaystir lagaa sugayay biraha xafiiska lagaa sugayo oo intood hawshiis ka laabto dib u dhigtay ad waxyaabaha malayacniga ku mashquushay oo caadada dhibaatada inagu ahi ay kuu kaliftay in hawl muhiima aad hawlan waxba ahayn ka horeysiiso hadhowna markaad dambe aad calacasho cawaaqib xumada ugu xun ee laga dhaxla dib u dhigashada waa mid la xidhiidha aakhiro marka aanay cidina awoodeynin in dib loo soo noolaado sida aan hore u soo sheegnay magacada maalinta qiyaame waxaa ka mid ah maalinta qoomada yowma alxasra wa andirhum yowma alxasri baa yidhi waxaan la sugaynaa la sug baa la yidhi ay uga dig baa la yidhi yowma alxasrati إذ قضي الأمر وهم في غفلة هم لا يؤمنون يو غفلة كده حجرة وان إلهي الرومينين مركي كو عندك لقالان ما أنت قيامة ودش دخل عليه مركا ما أنت قوم مضى أيا وحيابها أوحن يو عواقب حمد أوحن لقد شو حكم ذا ينقفكم ما أنت قيامة أقتل العضو سو حدي بقول دقايق محايل قال هذا أكلي كما قومين يعني إن أنا إلهي سو الرومينين laakiin xataa muuminiintu waxay ka shaqeyn doonaan inaysan waqti badan ku bixin inay shaqaystaan camal wanaagsan haddaba caadada dib u dhigistu waa khatar waxaa habboon inaynu ka saarno qaab nololeedkeena dhammaantiiba haddaba waxaa su-aal isweydiinaynaa islaamku muxuu ka yidhi dib u dhigashada waxaa xusid mudan in culimmada taariikhda islaamku ay si adag uga hadleen dib u dhigashada mid ka mid ayaa yidhi waxaan kaaga digayaa dib u dhigashada waayo waa askari ka tirsan ciidamada ibliis ibnu cabaas waxa uu leeyahay odhaah weyn oo caan ah wahsiga ayaa guursaday caadisnimada waxaana iska dhaleen faqri wahyiisi waxaa isguursaday buuri ibnu cabaas caadisnimo iyo wahsi baa isguursaday maxaa iska dhaleen marka faqri qofku markuu shaqaysan waayo ee wahsado ee hawlihiisii dee uu ku gaari lahaa faqriga kaga bixi lahaa markuu ka wahsado wahsi loo geeyey amba caadis loo geeyey equal
hay caajis plus wahsi equal faqr baa soo baxay marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa duco gaar ah oo uu alle ka baryi jiray inuu ka badbaadiyo caajisnimada iyo waxyeellada ay leedahay dib u dhigashadu wuxuu odhan jiray alla waxaan kaa magan galayaa welwelka iyo murugada daciifnimada iyo caajiska fuleynimada iyo bakhaylnimada culayska deymaha iyo inay gaaladu iga awood bataan allahuma inni acuudu bika min alhami walxasn waacuudu bika min alcajsi walkasal waacuudu bika min aljubni walbukhl waacuudu bika min ghalabati addiin wa qahri rijaal siyaabaha wax ku oolka ah ee lagaga gudbo dib u dhigashada maxaa ka mid ah haddaba inagoo og saddexda sababood ee asaasiga ah ee keena dib u dhigashada soona fahanay cawaaqib xumada ka iman karta aynu eegno siyaabaha laga gudbi karo dib u dhigashada haddii aan nacno hawsha ha tixgelin muhiimaddeeda amba ha dareemin culayskeeda waxay sidaa yidhi professor Stephen Pressfield ninka la dhahdo sida ay ciyaartooyda xirfadleyda ahi maalin kasta usoo xaadiraan tababarka haddii ay jecel yihiin iyo haddii kaleba sida qorayaasha xirfadlayaasha ahi ay wax u qoraan maalin kasta haddii jecel yihiin haddii necab yihiinba sida ay khubarada shirkaduhu subax kasta usoo shaqo tagaan niyad inay wahayaan amba iinu hayni iyo la dabeecad xirfad leh oo ku wajahan shaqadaada waxaad awoodi doontaa inaad dareenkaaga si fudud meel isaga dhigto siina wad shaqadaada ma fahmaysid hawsha fikradna kama haysatid sidii aad wax uga qaban lahayd arrinta waxaa si fudud kula xallin kara qof hawshaa hore u qabtay amba waxaad ka baadhi kartaa meel wax laga baadho waxaan ku odhan lahaa uun dhowr shay ku dadaal xadiis baa jira nebigu caana oo salawaatullahi wasalaamu caleyh uu leeyahay saddex shay nebigu noo sheegay wuxuu nebigu yidhi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah walaa tacjis saddexdaasi shay ee nebigu noo sheegay ama saddexdaa qodob haddaad qaadato innaga maanta maxaa noogu badan qofkii waxbuu dhegeysanayaa dhiirigelin buu soo dhegeysanayaa motivation buu soo daawanayaa niyaddiisa xamaasad baa ku kacaysa bis haas ku dhaafaya muhiimadu waa ficilka ficil wuxuu nebigu yidhi axabu alacmaalu ila allah axabu alacmaali ila allahi aduwama waynqal war ilaahay wuxuu ku jecel yahay camal fara badan inaad buuro dahwa bixisa maaha inaad caawo dhan soo jeedo birna ka cararta maaha waa camal yar laakiin la joogtaynayo markaa nebigu wuxuu leeyahay war wixii ku anfacaya ku dadaal ficil baa loo baahan yahay ilaahayna tala saalo hana caajis hataa saddexdaa qaacido qaadato ood wax walba oo ku anfacaya ku dadaal meesha maxaa ka baxaya wax kastoo malaayacniya ka baxaya meesha wax waliba oo malaayacniya ka baxay hadalkii malaayacniga ba ka baxay ficilkii malaayacniga ba ka baxay meel malaayacniya tagtaa ka baxaysa inaad cid malaayacniya raacda ka baxaysa inaad wax malaayacniya ku dadaasha ka baxaysa wastacin billaahna maxaa soo hoosgalaysa dee ilaahay tala saaro musabib alasbaab kan waxa aad ka shaqaynaysa kuwa aqbalaya ee arrinta suurto gelinaya waa ilaahay subxaana watacaala ilaahay bari tala saaro ilaah talada u dhiib maxaa nebiga lagu yidhi washaawiruhum fi lamri faidaa cazamta fatawakkal cala allah nebi maxamedow asxaabtaada la tasho arrimaha muhiimka kala tasho markaad go-aanka gaadhaysana eed go-aanka qaadato eed ku dhaqaaqaysana ilahay tala saaro marka sababtii baa ka soo horeysa horta dadaalka la imo oo ku dadaal wixii ku anfacayay kadib ilaahay tala saaro maxaa la daba dhigay maxaa looga jeeda ilaahay tala saaro meesha maxaa ka baxaya inaad u kelida anaa aqoontayda ku gaadhay heerka inaad tiraahdo ninkii qaar muxuu yidhi war ilaahay baa lagu yidhi ka cabso ilaahay waxaan ku siiyey saan yeel baa nebi muuse ku yidhi muxuu yidhi innamaa utiituhu calaa cilmin cindii anaa ku keenay xirfadayda buuri lacagtan iyo ganacsigan iyo dhaqaalahan buu yidhi maskaxdaydaan ku keenay garaadkayga markaas sidaa ha noqoni ilaahay tala saaro haddii sababta aad la timiday ood waddo fiican marto aduu ha ismoodin inaad adigu waxaan gacanta isku hagaadho isku tutusisa ismoodin ilaahay tala saaro subxaana watacaala qodobka kale saddexaad nebiga nagu boorriyey muxuu ahaa walaa tacjis ha caajis caajiska iska ilaali caajis wixii kuu keenaya iska ilaali maxaa kuu keenaya dad xun wada raacday
dad noloshooda inay cunaan oo cabbaan oo dad caayaan oo meelaha wareegana tahay ka hadh isaga hadh dadka qabiiliyiinta ee qabyaalaystayaasha ka hadh dadka fikirkooga hooseeyo ka hadh meelaha lagu baaba'ay ka hadh meelaha dadka qabtale inay wax noqdaan doonaya dunya aakhiro la fadhiiso raac maxaad ka ilaalinaysaa ficil walba oo hoos ku dhiga iska ilaali meel walba sharaftaadu ku baabaa iska ilaali ha caadhisin wax walba caadhis ku keena iska ilaali qof hawl badan oo hurda yar oo hadal yar noqo waxyaaba kala dib dhigashada ka ilaalinaya maxaa ka mid ah inaad nidaam yeelato waqtigaada qorshayso waqtigaada inaad qorshayso hadduu waqtigaaga aanu qorshaysnayn oo nidaam una lahayn oo saacad kasta meesha ku baxaysa aanay qornayn waxaad qabanaysa aanu ku qornayn maxaa imanaysa shaytaanku nidaam iyo waqti kuu sameeyo kuu qorsheeyo oo rabo nidaam kuu dejiyo oo saacadaha qaar xan kaaga lumiyo saacadaha qaar suuqmeys kaaga lumiyo saacadaha qaar been kaaga lumiyo saacadaha qaar qabyaalad kaaga lumiyo waxaase dhacaysa ka digtoonow inaad waqtigaaga ku nidaamsanaan waayo qodobka ugu muhiimsan wax weeye firaaq iska ilaali wallaahi maanta markaa nin dhalinyaro aad tahay ama gabadh dhalinyaro aad tahay firaaq ka carar firaaq iyo naftaada ka ilaali firaaq inaad jaanis hesho iska ilaali naftaada mashquuli intaad yartahay man shaaba calaa shayin shiiba calayhi baa la yidhi qofka shay ku dhalanya ku barbaaraya ku gabooba haddaad maanta adoo da'yar meerays bilowdo oo adigoo da'yarna iska fadhido iska waxay siiya hadhow toos baad baran adoo yar shaxaad barato hadduu daqiiqad xadi doonta hadda adigoo yar maanta caadislow iyo hurdo fara barato hadhow saa u shaqaysa marka 60 gaadho ee jileecdo markaa dhalinyaro waxaan naftayda naftiina ku waaninaya oo ku soo gabagabeynaya muuqaalka ila dheeraane inaan iska ilaalino firaaqa oo nafteenna waqti u samayno aan mataqaana waqti aynu nasanayno waqti aynu wax baranayno waqti aan shaqaysanna ka dhigno ون وقتك إن النظام إنه ماشي كبحي واي الله سبحانه وتعالى وإنه ودين دون وقتك لأن معين كسيك ودين دون تسألون يومين عن نعيم بالله يدي معين كل قصية عندها يدقها عافمات كوحن يقول لك ودين دونها تطبع عافمات لا وفراق لا دي لهي مواينه هذا اللي هو يجيه مركا مغالطة حانا إن شاء الله تعالى هي حلقات عجيبة أيان صوبة رمضان يو أنت قول سبا انت المقال من كل من دونه حد اللي هنا بدي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته